xukuumadda Somaliland ayaa maalinimadii shalay qoraal ay ku baahisay barta Facebook ay ku leedahay wasaaradda isgaarsiinta Somaliland ayaa lagu sheegay in ruqsaddii lagala noqday shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala gudaha Somaliland. bulshada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa telefishinka Star TV wuxuu rayigooda ka weydiiyay go'aanka ku saabsan ruqsad kala noqoshada shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala gudaha Somaliland sida ay bulshadu u arkaan. Dadyogaan la kulanay ayaa fikirkooda wax u haasiban. niyo anigu waxaan u arkaa in ay tahay khalad ay dawladdu gashay maadaama dalka aan shirkadahan ay wax badan soo kordhiyeen iyadoo aan dawladdu keenin furaha xataa dalka uu yahay kii hore ee Soomaaliya ay dad yihiin iyagu isxilqaamay oo hantidoodii galiyay shirkadaha marka in dawladdu imika tala ruqsad baa kala noqday iyaduna aan keeni karin shirkado booskoodii gali kara markii horena aan wax qabad laga haynin anigu waxaan u arkaa in dawladdu inay iyadu u doonayso wax inay hantidan la wareegto baan ugu arkaa oo shirkadahana waa shacabkana waxa dan ugu jirta inuu shacab u hayo waxyaabaha waaweyn ee shirkadu ka mid yihiin marka wasaaradda isgaarsiintu inta Somaliland jirtay weligeed xafiis ma furanin adeegyada qabataa ma jirto wax ma bixiso marka imka waxaan ogaa amisana cashuur iyo waxay ka rabaan xaq darro una ay u ogol noqdaan ruqsadda marka waxaan leenahay u soo celiya awalba wixii inta Somaliland jirtay hal dawladoo kala noqotay ruqsadda ma jirtay waa taaracdoonuna waxaan aaminsanahay in waxa dawladdu faraha kala baxdo shacabkana hawlahooda u dayso wax horeba laga ma haynaade intan ku sii daraana dadku indhahaas ku qaban sabaan ugu aaminsan shirkadahan laga noqday fursada shaqada laga noqday dawladda shirkadu markaa waxa shirkada bareefada oo ma ahaan shirkad dawli oo isgaarsiinta dawladda ku shaqo lahayd marka maadaama intii dawladdu ay kabsanaysay ay ka shaqeeyeen meeshii ay ka shaqeeyeen in laga noqdo dawladdu noo keento isgaarsiin jaban internet jaban qarasay adeeg jaban oo iyaga noo dhaama waan ku raacsanahay in laga noqdo haddii aan laakiin dawladdu waxba haynin deegaanka kala kicin shirkadaha iyaga noo shaqeynaya bareefadka laakiin dawladdu wax dhaama haday hayso oo fikir fiican hayso ay hayso soo dhaweynaa waxay ka wacantay hayaan soo dhawaadeen oo leena le wax soo warmaan wax soo wadaan ayna cambaarayna haddii wax aan ka hayaan haalaya welcome baan leena soo dhaweynaa dawladda haddii aan ka hadlo aniga raygayga ku aadan saddexda shirkadood ee lagala noqday adoo ruqsaddii dawladdu kala noqotay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi waxaan oran lahaa waxa weeyaan xukuumaddu yaani tacaddi ku sameeyeen adoo shirkadaha wixii sharciya ee ay sameeyeen wixii sharci darro ay sameeyeen waa in runtii waxa wixii lagu aadanay sharci darro ay sameeyeen waa in lagu ganaaxo laakiin ma aha in ruqsadda laga noqdo waxa weeyaan adoo sharciyan wuxuu dhigayaa sharcigu waxa weeyaan in loo geeyo warqad marka hore waarana laakiin inaan adu markiiba ruqsadda laga noqon weeye inaan lagu tacadiyin weeye haddii shirkaduhu ay qalad ay geysteen waa in lagu qaadaa shirkaduhuna waxa weeye waa adeegaha bulshada marka waxaan oran lahaa anigu raygayga wixii tacadiyaha laga ilaaliyo adoo shirkadeena waxa weeyaan runtii waa horumarka aynu ku talaabsanay hadaynu nahay qarankan Somaliland waxaan oran lahaa xukuumadda hoos ha u eedo shirkadaha wixii tacadiyanaha ka ilaaliso shirkaduhuna waxa weeyaan waa adeegayaal intaasan ku soo koobilaa shirkadahan soo Telesom Sontel ruqsaddii kala noqotay waxaan leeyahay wasaaraduna way waajibka ay gudatay waxaan leeyahay hore ugu sii socdo shirkadaha isku shaandhayn badan ha ku sameeyso wasaaraddu qaar faa'iido leh qaar faa'iido ay ku jiraan waa ray wanaagsan iyo soo jeesay rayga ay soo jeedisay anigu waxaan qabaa dawladda lama diidana laakiin anigu waxaan qabaa inay magaranaysa waxba keenin inaan anigu qabaa waayo boqolkiiba 95 taakulantii maalgelinta dadku wuxuu shaqeeyaa shirkadaha ayuu shaqeeyaa marka waxaan rayga ka geysanayaa dakhli badan ma hayso hadda waxa ku soo haysto anigu kala kicin baan u arkaa ilaa hadda weli wax faahfaahin lagama bixin go'aanka ku saabsan ruqsad kala noqoshada shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala gudaha Somaliland. Cabdiqani Baafo, telefishinka Star TV, magaalada Burco.